كانوا إن بدن بقربتوك شر لحية طن قربتوكم مقنا دوش قيسنا يا إنه كسر شقيستي أهيد لكن دوبيله أنا قمنا قانو وأنا قاعدوا بنقولنا ما أرك وانكو عبينا يا وانكو عايا يا آد بان أقح ما هاي جورجيسة يا إلميسة يا استغطان أنا أركب بيت علبة سببتنا وامحي سببت وحيت هاي واحد رقنا ولقنا بيالن أنا سلطان ما هين نروح حياتهم كسر كريس رف بانو لهين رسبان لهين مركه wax dad leeyahay dhaqa hadda ka hor maanan arag taas uu ku ceebaysay waan ku caayaya waan kaga cararaya inta ku soo baxay meesha uu joogayaan geeska mar xagga ay naga mariyaan laynagu arkin meesha shaqaale leedahay dad baa ka shaqeynaya marka ma kaliya inuu isagu leeyahay darteed baad waxaan u sameynaysaa taas aan u sameynaya dhar buu dhaqayaaba hadii marba la yiri anaga dawaynoo dhamaatayba kaligeena ma aheesan reerunahay ruux walba madax dhulka ku dhuftay kuwii dabadii jiray waa soo cabaadayaan هذا وحي كاستاكسي لقانا نصو دريناي waxaanu faraha la galaa ka baxo nin hadda calal dadlay haysaa sugu foorsaday dadka xanuunsanaya meelaha la geeyay inaan geeyno mooyaane tigsiga meelaha dadka xanuunsan la geeyo haatan waxaan la fadhiyaa Hinde Shukri oo Sidiiq xaaskiisa ah isla markaana aan la dhacsanayn sida la sheegay arintan doobiilaha ee Sidiiq ku dhaqaaqay hadaba walaal sideed u aragtaa bal Sidiiq iyo arintan biilkiina uu ka soo saaro waxaan arkaa qof waaran inuu yahay kuma faraxsan xitaa biilkaan rabaan ku iri iga shaqeyn doobiil wiiga qaadan waayo maxaan ku dhahatay waan ka shaqeynayaa maadaama iga qaadan waayo aan kana geey waayo sidoo qof waalan baan uga samray waan ka geey waayo maxaan ku dhahayaa toy ka geynaanshaha baan kula socdaa xitaa dadka qaraabadu markuu dhaho ninkaagu muxuu ka shaqeeyaa waan qariyaa dukaan buu haystaa waan dhaha anoo maxaan ku dhahatay diidaya inaan dhaho doobiilu ka shaqeeyaa laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin arintani arin wanaagsan inay tahay lacagna laga heli karo taas kuma muuqato miya may ima muuqato aniga xitaa haduu lacag ka helo ima muuqato inuu sharaftiisa ku dirayo bay ila tahay isaga un baa maxaan ku dhahatay magaciisu raacayaa doobiil un ninka ka shaqeeyaa bal ama ha dhaqa isaga ama una dhaqan soo laga yaabo inuu dharkii xasfuujinaynin un baa leeyahay ninkii doobiilu ka shaqeeyaa laakiin anigu isba waxaan diidanahay doobiilahaas ka shaqeeyaa hore wuxuu ka shaqeeyay maaragtay may wax isirkayga xitaa dhagna kuma maqan wax isirkayga ka shaqeeyana ma jiro laakiin armay sababtu tahay sababtaas oo wax isirkaaga ka shaqeeya iyo fikir badan aadan ka haysanin ee hadaad fikir badan ka haysan lahayd aad oran lahayd oo soo shaqeeyo aroorti kale lahayd may oo ma kaleeyeen doobiila maxaan ku dhahatay ka soo shaqeey ma dhahan xitaa hadaan arko bal hadaba aan weydiino Sidiiq Faarax Haywe arintan uu ku dhaqaaqay dadkiina ay kula culuubeen isaga waxay ku dhaliyay muddo 3 sano ya warshad dharka lagu dhaqo oo ku taala magaalada Daraman ee dalka Norway yaan ka shaqeeyay kullay mashiinadii iyo qalabkii iyo dadweynaha naga hormartay bay ahayd laakiin waxaan halka ka soo ogaaday dhardhaqisu inay wax lacag badan tahay mid kale anigu waxaan aaminsanahay sideedaba waxa aniga shaqo iga celin kara waa kaliya inuu yahay xaraan wuxuu haduu xalaal yahay shaqo waa shaqo noocay doonaa noqotay hadda laakiin dhibaatada waxay ka haysataa xagga qoyskaagii qoys kaliya ma aha reerkii oo dhan bay iga haystaa qabiilkii oo dhan bay iga haystaa hadda waxa socda mooshin qabiilka laga saarayo reerkan ka dhashay yaa socda marka de qolo kale inaan ku soo biiro diyaar u aday jirto hay soo sheegto oday de waa hore dhintay oo awowgay ahaa wuxuusan ogeyn hadaan anigu fahmo oo nacfi kala soo baxo de isagu saas muuse yeeli jirin anigu inaan uga leexdo ma adoo ugu yaraan waxba kaama gelin waxa qoyska ma uu sheegayo anigu go'aankaygu wuu cad yahay ummadoo dhan haday iga hortimaado go'aan gaaro anigu go'aankaygu waan wadanayaa